أبو بكر عوالي أحسن وقابلني بنحسن السلام عليكم. عليكم السلام أبو بكر. أنا صاحبك مطان صاحبك بطان والسلامي أصحاب صدنا والسلامي يا ميلا جوكتنبا رمضان مبارك سومالي وين waxaan horta marka hore ku bilaabayaa inaan u mahadceliyo DJ Suber. What a platform, what an amazing achievement in codkaagu within week gudihiis uu gaaro over 1 million people. waa inaan ka fakarnaa runtii sidii aan opportunity-gan loo naturalize garayn lahaa ma aragtay وأبا كاجم هذا لكن عيد يقول ضب الزهبك عيد. لا you have to keep going brother, you can change. Somali لما بدلك كرتا حتى سان كودت إن شاء الله. أظن كاجم هذا عليا إن رمضان مبارك نصاحب وحربي ضدك بالسوين تهرتا إن ويكول يقانا مالك جيس كسيد عاوف فرصتنا حقا وي وحربي وطينا كبلو دنك awareness كوفيد 19 يضدك الصومالي دين يقوليه دي شوغان وضدك والد كان إلا على نوع. Absolutely. And marka hore horta waxaan salaamayaa asxaabtii igu horeysay ma sha Allah koofiyada kala duwan wata Ilhaan Umar ugu horeyso walaashay Jawaahir oo ahayd qaadiid halkan markay joogtana tagaariyaasha ugu waaweyn ahayd East London Muqdisho markaan tagana mar walba naga garab taagan walaalkayga sportska bilan ma sha Allah and COVID-19 waa masiibo weyn oo adduunka soo food saartay waxaan oran karaa talooyinka dhaqaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka iyo dawladda ha loo hoggaansamo qof walba mas'uuliyad shakhsiyan ha iska saaro inuusan naftiisana protect gareeyo asagana uusan noqon carrier dadka u gudbiya oo uu gacmihiisa dhaqdo oo maskigiisa xirto oo uu iska ilaaliyo meelaha khatarta lagu sheegay runtii haddii la fiiriyo awoodeenna Somali macnaha national health service keena iyo sida uu yahay waliba waxaan ugu sii waajibaysa inaan taxadar extra ah adduunku intuu taxadarayo laba laabkeed inaan sii taxadarno waana Ramadan tobanka u dambeysay lagu jira ana ka ducaysano insha Allah in Ilaahay cudurkaas naga mootiyo aamin waxaan su'aalaha aan soo diyaarsaday saaxiibkaan soo diyaarsaday ta koobaad why shaqadan qaadka inaad mamnuucdid why shaqadan ina qaadkii ka soo horjeesatay why aad maamada laamiga ku iibinaysa qaadka ama de kolliyada shaqa ka xidhay sida indhaha qofkii negative ku arko oo why afraha u gashay horta why qaadid yani qaadku waa wax jira dhib waxa la haado laakiin why me waa su'aal fiican way anigu waxaan aaminsanahay qaadku subax saan u joogay inta ku soo fakaray kuma dagaaleen qaadku asaga dagaalku igu bilaabay ana soo cunay anu 7 years of my life qaatay aniga xanuunkiisii dareemay aniga ku sigtay inuu qoyskaygu ku dumo marka ilaahay xamdiga hadii ilaahay iga madoobeeyay waxa istusay niyow ma noloshaada iska raacataa alxamdulillah inta dhahdaa iska baxdaa mugoocidii ku jirta iyada u taalaa miyaa dhahdaa mise وحن بعد كذا حتى واحد يقول صدق على واجس ما كان قبيضة لكن unfortunately قبيضة ما أقال مرك الله وحكم بلامي وشاب أنا أنصام مري وأن أجدي جيو ويل كيركا يصوص على الكعب عدينا إنه other please قد كأنا حتى كهر كل عي سكتشر قديد كلامه أنتاس أرنت هو يوينك و very serious question yes ويجران هو يوين كنول yes ويجران هو يوين أغون كرسدا كو سكولات كبحية لكن waxaa jira hooyooyin kale oo aanan arkin oo ilmadu ka dareerayso waxaan oran karaa halka hooyo oo qaadka gadaahi waxay qadisaa oo biilkeeda ka soo qaadataa 10 hooyo kale oo aan qaad gadin laakiin ninkoodu qaadka cuno ninkaasaa soo qaada hooyadana biilka loo keenaa hooyadana way survive garoobaysaa laakiin 10 hooyo oo kale ayaa victim ah marka mar walba haddii la isbarbar dhigo inta hooyo faa'iideysa iyo inta hooyo dhibaatadu gaarayso waxa badan inta dhibaatadu gaarayso taasaana mudan in loo doodo oo laga hadlo waan ku qancay haddii hal hooyo ay qadayso 10 hooyaa badbaadaysa yes
tobanka hooye markaa badbaadaysaa ma waxay ma dhaqaale ahaan bay badbaadayaan ma caafimaad ahaan bay badbaadinaysaa ninkeedii ma ilmihii bay caafimaada ma isagiiba caafimaadkiisa ma iyadiiba waa tobankaas hooyo oo ninkoodu qaadka cuno waxaa khatar ku jira carruurtoodii oo biila waxaa ku jira ninkeeda caafimaadkiisii waxaa ku jirta iyada laftigeeda hooyada laftigeeda oo domestic violencega hadda aan ka hadlaynay ay ku imaan karto iyo reerkii inuu ku dumo waxaa kaloo oo mudan kelmadda caanka ah oo loo bixiyey waa in la eegaa hooyada laftigeeda qaadka gadaysa waa inaan eegnaa waa maxay sababta keentay inay kabarka soo fariisto hooyo Soomaaliyeed ma la oran karaaba hooyadanba waxaa kabarka keenay because ninkeedii baa qaad cuna marka solutionku aan raadinaynaa ma noqon karo inaan dhibaatada lafteedii dhahno war wixii dhibaatada keena aan ku daaweyno hooyadu ha gaday daaya because dhibkuba asalkiisii qaadka ayuu ka yimid marka dhinac walba haddii loo fiiriyo waxaa roon in xalka loo raadiyo hooyooyinkaas marka xaq waxay u leeyihiin inay carruurtooda korsadaan waana midda aan hadda aan dhiirigelinayna inay qudaarta gadaan inay dharka baatiga gadaan inay sambuuska iyo bajiyaha iyo kackaca gadaan another alternative weliba lagu taageero oo lagu dhiirigeliyo baan mushkaraynayna insha allah dhanka dhaqaalaha maalin dhawatole postaa soo dhigtay Facebook anigu subarhanta aad aan u taageero waxaa tustay waxaan radaa swart to bit bay soo shaqeeyaan black and white yani caddayn caadiya yani inta malaayiin dhul Soomaaliyeed ka baxda iyo aanay wax ku bedelin intaasaan rabay aad ka daba geysid dadka horta unfortunately I don't have boogie qaadid hadda ima hor yaalo laakiin at top of my head waxaa la yiraahdaa koonfurta kaliya oo aysan weliba ku jirin Kismaayo iyo inta Kenya u dhow oo baabuurtu keento qaadka diyaaradaha kaliya ka hadlaya oo Kenya ka yimaada waxaa lagu qiyaasaa 780 milyan sanadkii now haddaad fiirisid 780 million pound waxay ka badan tahay miisaaniyadda dowladda federaalka Somali government annual budget waxaa ka badan inta aan qaad ku gadano marka diyaaradda hadda Bakro saaxiib waa intii diyaarad u baxda waa diyaaradaha kaliya waa another statistics in Somaliland qaadka Ethiopia ka soo gala waa another statistics qaadka ka soo gala Jubaland iyo Soonaas xadka Kenya u dhow dhan mid baa badda ka soo gala waa nooc kale laakiin waxaan ka hadlayaa diyaaradaha yimaada magaalooyinka Muqdisho Gaalkacyo Qardho Boosaaso Badhan Buuhoole Cadaado Dhuusamareeb so many cities kaas flights directly from Nairobi ka soo duula subax walba marka amountiga ay keenaan marka lagu dhufto 450 oo jawaanka qiimihiisa waa over 780 million dollars imagine adigu DJ Subar iyo daawadayaasha hadda waxaan weydiinayaa bal imagine lacagtaas inta warshadood aan sanad walba ku dhisan karno sida saxda loo isticmaalo waxyaalaha la yaabka waxa kamid ah hadda coronavirus ka xilligan uu jiro inkastoo adduunyadii oo dhanba ka cabanaysa dhaqaale xumo waxyaalaha ay ka cabanaysa oo ay u dhahaysa maxkamad ma tegi karno dhaqaale xumo kamid ah dhaqaale xumidaas soo food saartay waxa kamid ah lacagtii dollarka oo cadaanka oo cashka oo maalin walba Soomaaliya ka qaadan jirtay marka waa dhaqaaliyan wuxuu fariisinayaa dhaqaalaha kaliya ma muruqi dhalinyaradii shaqayn lahaa productive ka noqon lahaa wuxuu saameynayaa maskaxdii fikri lahayd waa qaylaysaa marka in every aspect dhinac walba oo laga fiiriyo qaadka waa in xal loo helaa way aad baan kaaga mahad celiyay qaadka substanka ama maxaa ku jira addicted noqonaya hadda sigaarkoo kale de waa nicotinka maxaa ku jira qaadkan horta addicted ka dhigay rag iyo dumarba dee labada maado oo qaadka ku jira waxaa la yidhahdaa caffeine iyo cathinone waana addictive waxyaalaha ay ku fiican yihiin waxa weeye qaadka hadduu baarixi noqdo Soomaalidu waxay dhahdaan qaadka hadduu maalin jiro kii shalay oo kale war waa baarixi waxaa lagu leeyahay caffeine life longkeeda baa wax yaroo gaaban ah that's why gaariga qaadka wada uu ordo that's why qaadka diyaarad loo saaro that's why wax walba loo dadajinayo waa caffeinekaas inuusan ka bixin caleenta gudaheeda marka waxa addictive ka ah waa kaas waana waxyaalaha uu scientifically anigu dhakhtar ma ahay laakiin intaan akhriyay
waxyaalaha uu keena waxaa ka mid ah liver disease buu keenaa afka qofka cancer uga dhaco paranoia iyo psychosis iyo qofka self esteemkiisii iyo nadaafadiisii iyo wixii oo dhan baabaa oo asagii isu qaato and I'm talking about myself anigaa soo maray qofku hadduu qaadku la dego dad waxaa jira medium users oo qaadka once a week ku baashaala oo controla laakiin real heavy usersku qaadku wuxuu saameynayaa caafimaadkooda nadaafadooda self esteem confidencego qofka kalsoonidu hadday ka dhuntana waa finish waa done waan kaa qaatay taasna iyo situationka dhulkii hooyo maanta Djibouti bay iga soo bilow soo soco Hargeysa Garowe xamar Kismaayo list sheediyahoo dhan ba ama listkoo dhan situation xagu maray wayna karano qaadkooda wala gubaya maanta ma waxa loo gubaya corona virus darteed mise dhan political ba loo gubaya hota qaadka unfortunately horta wixii laga gubaya waa dhamaadeen Somaliland way fasaxday Puntland way fasaxday koonfurti iyo diyaaradihii baa hadda xiran waxa loo gubaya waxay ahayd coronavirus laakiin anigu waxaan aaminsanahay qaadka laftigiisa coronavirus ah يعني Soomaalidu waxay qaadka u gubaysay bahalkan yuusan cudur noo keenin naga guba laakiin aqliyan asaga laftigiisa cudur ah because katinki ka tanan waxa ka daran pesticide-ka lagu buufiyo DDT-da magicii waxa lagu buufiyo pesticide baa la dhahaa waa sun la dagaalanta ayaxa iyo cayayaanka iyo inay fuulaan qaadka Soomaali arag mar walba inuu shayniyo dhalaalayo sidii wax la luujitay waxa ku xidhanta meesha lagu cunayo go ahead marka pesticide-kaas lagu buufinay iyo asagiyo asalkiisi katin iyo katanona anagu fikriyan waxaan aaminsanahay hadday Soomaali qaad u gubaysay coronavirus uusan soo gelin qaadka laftigiisa ayaa khatarta coronavirus wata because hadda intii cudurkan socday inta qof oo u dhintay haddii la fiiriyo intii ka horeysan cudurkan iman inta qof ay qaad u dhimatay awgiis ama beerku u baaba'ay ama silic kale u dhintay waxa badan baa la oran karaa inta qaad ku dhimatay marka sidiisuuba mudan yahayba in la gubo waan ka qaatay iyo su'aashii ugu dambeysay saaxiib waqtigaaga marba inaan sii qaato suxuurtiba loo wala cararaya maxaad kula talin lahayd hadda bulshada kugu jirta hadda ay ku daawanaysa from top to bottom almost aan lahaynaa yani dadka kala duwan ee ku daawanaya fariintaba uga tagi lahayd saaxiib waxaan oran lahaa ingiriisku waxay dhahaan be the change you want subeer hadda waxa uu samaynayo bulsho rabaa inuu wax ka bedelo anigu waxa aan sameeyay bulsho wax aan dhibsaday oo anigu aan soo maray baan go'aansadnay inaan wax ka bedelo adiga i daawanaya Somalia waa wada challenge pick up your challenge Somalia waa wada challenge pick up your challenge dhan caqabadaha jira badan marka challenge-yadaas mid ku dhig oo ku mintid oo isku day isbedelka aad rabtid inuu dalkaagu noqdo inaad adigu doorkaaga ka qaadatid meel walba aad joogtid iyo wax walba ay tahay hal tusaalaan idin siinaya wiil yar oo Soomaaliya baa wuxuu arkay cudurka coronavirus oo la leeyahay oxygen ma haysano maskigi waa naga dhamaaday waad aragteen hadda gabdhihii baa samaynaya wiil yar oo Soomaaliya sameeyay oxygen-ta lagu neefsanayay marka waa real change maker weeye marka qof walba waxaan oran lahaa isu xilsaan cirbadna Allah ka dhigay Soomaaliya inaad wax tartid maanta waxaan ku leeyahay saaxiib sharaf bay yahay wata caawa inaan xasan ku kulano abokar cawaale waa ka Instagram-kiisa madaxayga waanu ku samaystay caawa sharaf korkaaga Allah ha noqdo ma sha Allah ciid mubaarak saaxiib dhulkii balantiina waan oofinaya burco weyn